السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياش شرفت له كل عام وأنتم بخير. بعد وهليها أمدا وحي رجينيسا صون لا أقبلي iyo sanad wanaagsan idinkoo ku sugan xaaladda iyo caafimaadka mid ugu wanaagsan. sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala waxaynu ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado cudurka iyo ibtilaha. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. bisha ramadaan waxaa isku diyaariyo ahlu samaa ka hor intaysan isku diyaarinin ahlul ardiga. ilaahay wuxuu ka yeelay khayr iyo barako iyo xasanaadka oo la kordhiyo. allah xadiithul qudsi wuxuu ku yiri alla weyne wuxuu malaa'igtiisa ku leeyahay malaa'igteedii waa maxay abaalmarinta ajarka hadduu sameeyo camalkiisa. malaa'igtu waxay dhahaysaa ilaahayniyow sayidkeeniyow abaalmarintiisu waa inaad u oofisaa ajarkiisa. alla weyne wuxuu leeyahay malaa'igteedii anigu waxaan marakacayaa inaan ka yeelay abaalmarintooda soonkooda oo istaagitaankooda raali aanshahayga iyo dambi dhaafkeyga. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haweenka ugu horeysa ee ramadaan waxaa la silsiladeeyay shayaadiinta iyo jiniyada waxaana la xiray albaabada naarta mana la furayo albaab ka mid ah. sidoo kale waxaana la furay albaabada jannada mana la xirayo albaab ka mid ah. mid dhawaaqaya ayuu wuxuu ku dhawaaqayaa yaa baaghiya alkhayri aqbil wa yaa baaghiya alsharri aqsir. midka khayrka doonayo soo qaabil oo usoo degdeg midka sharta doonayo gaabso. allah wuxuu leeyahay kuwa uu ka xureynayo naarta haween kasta. qofkii ku sooma bisha ramadaan iimaan iyo ajir grubsi waa loo dhaafayaa wuxuu soo hormarsaday oo dembi ah. qofkii u istaaga haweenka leelatul qadriga iimaan iyo ajir grubsi waa loo dhaafayaa wuxuu soo hormarsaday oo dembi ah. waxaa jirto 4 qof aan ilaahay u dembi dhaafaynin soonkoodana uusan ka aqbalaynin. ibn Abbas waxaa laga wariyay Allah ka raali noqday asiga iyo aabihiisa wuxuu yiri asiga wuxuu maqlay rasuulka sallallahu alayhi wasallam asigoo dhahayo xadiithul qudsi oo ka ahaaday Allah subhanahu wa ta'ala markay malaa'iktu weydiinayso jibriil alayhi salaam habeenka leelatul qadriga muxuu Allah ku sameeyay muslimiinta arimahooda waxay dhahayaan jibriil muxuu Allah ku sameeyay arimaha muuminiinta ee ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. jibriil alayhi salaam wuxuu ku dhahayaa alla weyne waa uu fiiriyay wuuna cafiyay wuuna u dambi dhaafay ilaa 4 mooye. waxay dhahayaan yaa waaye 4tan waa midka qamriga cawa caasi waalideynka qaraawo gooska iyo kan carada daran. waxaa la dhahay rasuulka ilaahayow waa maxay kan carada daran? wuxuu yiri waa midka aan la hadleenin walaalkiisa wax ka badan 3 cisho. midka khamriga cawayo maalmaha ramadaanka ilaahay mu dambi dhaafayo wiligiisa mana ka aqbalayo ilaa uu ka toobadkeeno cad. allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri yaa ayyuhalladhina aamanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عاصي والدينك كاسوكو عاصينيو اوامرت والدكيسا او ديويو اوسن كدرييلين دأدودا الهي مكرالي نقنيو سونكيسنا مك اقبليو الا والدكيسا بارئ نقدمويه. الله سبحانه وتعالى وحيري وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. midka qaraabada gooya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dambi ma jiro oo ku haboon inuu ilaahay ku soo dedejiyo saaxiibkiisa cuquubada adduunyada ayadoo lala qabo wax loogu keedinayo aakhiro oo ka ahaaday kibir iyo qaraabo goos. qofkii ahaaday mid rumaysan maalinta aakhiro ha xariiriyo qaraabadiisa. allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم
midka carada daran waa midka walaalkiisa goynayo aanan la hadlaynin aanan naxariidinaynin wuxuuna u qaadayaa xaasidnimo iyo cuqdad mana la doonayo khayr midkan ilaahay ma cafinayo mana ka aqbalayo soonkiisa rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi midkiina ma rumaynin oo iimaan kaamil ah lagama helin ilaa uu walaalkiisa la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay ilaahuu naga yeel kuwa laga aqbalay soonkooda kana mid ah muttaqiinta yaa rabbal caalamiin muuqaalkani maanta waa naga intaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan intaan ku kulmi doonno muuqaalka xiga waxaa idin rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban waxaan idinkaga tegayaa dumtum fi ricaayati illah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hana hilmaamin daawadaha sharafta leh inaad nagu soo biirto oo janalka rugmato sabskraibeka taawato gambaleelkana furato laagna saarto sheergarayso kana dhiiwato fikirkaaga fiican kuna soo qorto qaybta hoose ee kommentiyada mahadsanid